هذا يشال أولاد هاي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دقيستيال ميل كستا وعدكي كودي كسو غاريو كنا سو دhowaada barnaamij suuganeedkii idinka iman jiray rugta ururinta suugaanta iyo suuyaalka ee qalinsoor toddobaadkan dhageystayaal barnaamijka waxa martaygu ah nin abwaana oo kamid ah dhalinyarada waqtigan suugaantoodu ay foolaadka tahay waa abwaan Axmed Xuseen Haybe oo Axmed Fiiro loo garan ogyahay Axmed waa nin dhalinyaro ah sida hore aan u sheegay laakiin waa nin la oran karo suugaantiisa iyo da'diisu way kala weyn yihiin abwaan Axmed Xuseen Haybe ugu horeyn aan ku soo dhaweeyay barnaamijka aad iyo aad baad mahadsan tahay mawlidow saaxiib adiga iyo bahda qalinsoorna aad iyo aad baan u salaamayaa annaguna waan kaaga mahad celinaa waqtiga qaaliga ah ee aad noo soo hortay bal hadda Axmedow intiina suugaantaan u gundan degin dad badan waxay isweydiinayaan Axmed Xuseen Haybe Axmed Fiiro waa kuma guud marka kooban hadaad inuu sameeyso bal hada dhinacii taariikhda iyo dhalashadii mawlidow horta kulay ninkii taariikh laba maxaa ku dhahay taariikh la weydiiyaa Axmed dhalashadiisu waxay ku beegnayd 1996 ha sanad ay Soomaalida qaarkeed u taqaano qeyl weyne ayaan ku dhashay deegaanka Soomaali galbeed degmada Daroor waatay marka halkaas ayaan ku soo barbaaray ugu dambeyntiina waxaan u soo wareegay xaggan iyo magaalada Hargeysa oo aan ka bilaabay waxbarashadeedii dugsiga hoose waatay ilaa iyo hadda waan heer jaamacadeedna reer Hargeysa ayaan Axmedow arinta suugaanta goorma ku dhalatay istareentay inaad wax uran karto walaal mawlidow say runtu tahay walaal waa wax maxaan ku raahdaa imaka in muddo ah baa maxaan ku raahdaa iskaga kay jiray ama aan oran karaba waa ila fil oo maxaan ku raahdaa waqti aan aad u sii yaraa ayaa maxaan ku raahdaa wixii ugu horeeyay oo hal abuura intaan garaasada aan isku arkay marka intii ka dambeysayna de kullee waa iska wadwaday marba heeray joogtay ma xasuustaa wax kamid ah waxyaabihii kugu horeeyay ee la oran karo waatih aad hal abuurtay mawlidow kullee maxaa ku raahdaa de iska yaraan bay ahayd waana maxaa ku raahdaa waqti dheerina waa ka soo wareegay wixii de la oran karo bulsho ayaan la hor imi waxa jiray tixgabaya oo kullee xilliyada hore xagga gabayada ayaa aad u taabudnaan jiray oo ninku markuu halaaburu yahay xagga aroosyada iyo xaggaasu hadda ma garanaysa marka tixdii ugu horeysay oo gabayahoo aan gaaf kala soo kaca marka aroos bad ka tirinaysa ha aroos gaaf aroos ayaan ka tiri haye kullee kuwa waaweyn baa la iska yareegi jiray oo maxaan ku dhahay habeenkaanu aragno inay maqan yihiin ama ay xoogaa ay ka yar taalo ayaa laga faa'iideysan jiray siinley bay hayd waxaan ku bilaabay sida tan in dhaweyd saadii gabay ma tirin sawdkii maansada ee satrigayga waataan ka jaray saabka feedhaha ee saxiixii xadiiska iyo markaan suuradaha eegay sunna faralka mooye wax kale waan ka saahiday wax saatir ku dhaliyay baan sina u guureynaa hadii saar durbaan iyo aroos loo sataacay caawa balansadaradiisii akhriyo wayga sugayseen balansadaradiisii akhriyo wayga sugayseen sida saban barwaaqaa dhulkoo soogan yahay doogu sabadana xareed iyo nimcadu aad u soconayso sawga beesha oo taale iyo sugunta guudkeeda oo sabab colaadeed ka jirin nabadna loo seexday saadaal wanaag iyo ducana sumalka loo loogay sandalada gabowday dad waa ugu sareynaaye saqiir gowrac qoomkaan lahayn saamax laga keenay ama sanga barooro wax badan sudaha daaqayay oo salow colaadeedna gelin silic ka dheeraaday oo subag intoo lagu gadiyay sabarku weynaaday adiga Suleekhay indhuu kugu samaadeena ma sidaaba qoyskani gobay sawracay tahay Soomaalida dhammaan iyo haddaan dunida saameelay xural cayntii sool iyo haddaan siman la haasaw ama aan sanaag iyo tog dheer saani u caweeyay ama saaxil joogiya intaa surimadii awdal ama sahanka gibilay ku tagay una socoteeyay sukhradii Hargeysiyo intaan sagal la haasaaway maan arag midaan kula simo suuradaada leh ma sidaaba qoyskani gobay sawracay tahay afarta sidii Sheekh Muftiye Saani ma u sheeg miyuu sheegay xarafkii saadiyo surankii aan maagay sakal buu ka yeeshaa ninkan saafin weeraha suugaan kalena way hadhe balaanidii saaro sarsarada awaare iyo deyr suguma aagooda saldhigii ugaaskiyo lafaa
seeri lagu foofsho sanaagyada iswada muujay iyo saaci labi hawle gobolkii sokeeye daroor sabada ay qaado marka sahanka guuraa galbeed socodka loo aado sanqadhi shabeeliya arjoog saad la kulantaay safkii rabasayabaad gashaa soonihii kale santarada ilaahay dhigeen laga salguureynin marka sahanka guuraa galbeed looga socoteeyo safkii abukoriyabaad gashaa sawgii qaraduuge salaxley sagaal labi ah iyo waxa ku saynsaaban suways kama macaashtiyo bulshadu saan cadaalaha suuqyada hargeysiya halkay sahaydu noo taale adigu ilaah kugu sameeyay sararta daawuda bal ogow sahray waa xamdigu sawd rabaaniye buu yiri habeenka waa runtii gabay aad iyo aad u muddo karo oo murti fara badan runtii ay ku jirto yarna wada hayd waqtigaas soo maaha xilligaa waxaan habaan malaynayaa haddaanan qaldanayn 15 jir baan ahaa markaa waa tixdii ugu horeysay oo aan gaaf roos kala soo kaco sacab badan iyo laba midho rasaasara waan ku mutaystay bal hadda tixdaas gabayga markaynu ka nimaadno waxaa jirtay tixi kale tixi gabaya oo dhinaca alla bari iyaduna daarnayd toobaya ilaahu adoon taageer baan ahay bal hadda isagana si fiican haddaad ku soo dhawaato mawlidow kolley waa afari aad u gaaban marka xilli aan nafta yar xisaabiyey ayaa maxaan ku raahday aan idhi adduunyadan tasawudiyo waqtigan tagay macaankiisi ee tanaadka noloshiya amniga taama laga waayay tafantoofkan waayuhu watiyo toonkan lagu leeday tagaabada bulshada aan istarin tacaddi mooyaane tamashlada dadkani qaayibiyo toobiyahan weecday taabogalka abaarahan noqdiyo tawstan hadhi weyday taariikhnimada weeyiyo macsida loo tallaabsaday taamilada carshigu leeyihiyo toomihiyo buurta tusaalkiisa goortii kursiga tiirsan lagu siiyo samadaa tawaadaa baddaa taagan maxalkeeda daruuraha tifaaqiyo dhulka toorka soo bixiyey tabaadiga maroodiga ah iyo tulidda geeleenna webiyada turqaayo haddii togaga aan eegay tagoogiyo awood iyo melihi turqiyo waaweyne toobayaa ilaahow adoon taageer baan ahay intaas toobayaa ilaahow adoon taageer baan ahay dhammaanteen ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu ka baryaynaa inuu toobadda inaga aqbalo